بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كنا مانتا وحكو سابسن ياي سيدا لو راديو كالكا وكو جيرو عريه أما how to predict the period of an element. Okay, period ka waxaa loo raadin karaa laba siyaabood. horta periodka wuxuu la mid yahay number of period waxay la mid tahay n-na waxaa laga soo gaabiyey highest principle of quantum number. marka tirada kalalka af soomaali waa kal, period af soomaali waa kal. ma aha kasha wax lagu tumo, ma aha kal waa magac lagu fasiray period af soomaali ahaan. marka tirada kalalka waxaa loo soo gaabiyaa n smolla, waxayna la mid tahay number of shells, tirada heertamaraha. marba haddaad taqaanid tirada heertamaraha waa taqaanaa periodka curyahaas waa taqaanaa. okay, laba siyaabood ayaan ku raadin karnaa number of period. inaan isticmaalno main shells, heertamaraha waaweyn sida k l m n o, sidaas. inaan isticmaalno subshells oo ah s b d iyo f. labada siyaabood ayaa loo raadin karaa number of period. okay, exampleka one, exampleka koowaad, predict saadaali the period kalka uu ku jiro curyaha loo yaqaana argon oo symbolkiisa ama sumadiisa uu yahay ee capital R small, kaasoo iska leh atomic number ama z is equal 18, 18 electron iyo proton. laakiin hadda waxaan habeynayno waa number of electrons. therefore argon wuxuu leeyahay 18 electron. aan ku bilaawno inaan ku raadino number of shells, main shellska anagoo isticmaalayna. marka main shells waa k l m n inaan isticmaalno. 18 haysanaa. shelka ugu horeeya waxaa gelaya 2 electrons, shelka ku xiga waxaa gelaya 8 electrons, shelka ku xigana waxaa gelaya 8 electrons. sidaas waxaan ku haysanaa 3 shells, 3 shell. haddaayana maxaana la yidhi number of period wuxuu la mid yahay number of shells. marka periodka uu ku jiro curyaha loo yaqaana argon waa period 3, maadaama tiradii shellska ay noqotay 1, 2, 3. si kale waxaan dhihi karnaa shelka koowaad waxaa galay 2, shelka labaad waxaa galay 8, shelka saddexaad waxaa galay 8. 1, 2, 3. marka argon curyaha loo yaqaano periodka uu ku jiro waa period 3. 1 heertamar, 2 heertamar, 3 heertamar. tanay la mid tahay. heertamarta waxaa la dhahaa k, tan waxaa la dhahaa l, tanna waxaa la dhahaa m. sidaas ayaa loo raadiyaa marka la isticmaalayo main shells, heertamaraha waaweyn. okay,
markaan isticmaalayna subshells maxaa la sameynaa okay waxaa la isticmaalaa SBDEF okay 1s2 1s2 2s2 2b6 10 electrons aan joognaa 3s2 iyo 3b6 okay laba ku dar 4 6 ku dar 10 2 ku dar 12 6 ku dar 18 hadda waxaan fiirinaynaa marka highest quantum number kuwaan waxay u taagan yihiin n small highestiga keewa midka ugu sarreeya waa 3 wax ka sarreeya male therefore periodka uu ku jira argon waa 3 sababtoo ah highest quantum number tirada ugu weyn meesha intaan waay inta laba waay inta laba waay inta saddex waa 3 marka periodka uu ku jiro curyaha loo yaqaana argon waa period 3 waa kalka saddexaad okay example kale aan qaadano example labaad okay example keena labaad example number 2 waxaa lagu yiri predict saadaali the period of tusaale fluorine Z is equal 9 okay labadii habba aan ku raadino aan dhahno inta main shells intana aan dhahno subshells main shells okay herta marii aan ku samayno 9 inta labaa gashay waa k inta 7 gashay waa l only 2 shells marka fluorine periodkiisu wuxuu noqonayaa period 2 kalka labaad okay aan ku samayna subshells 1s2 2s2 iyo 2b5
laba laba ku dar afar, shan ku dar sagaal. waayahay tirada ugu weyn meeshaan gootay inta waa hal, inta waa labo, intana waa labo. highest quantum number waa 2. marka waxaan leenahay fluorine is period 2. period 2. ardayow sidaas qaabkaas aan kuu soo sheegay ee fudud ayaa lagu raadin karaa periodka uu ku jiro curye. insha allah casharkan casharka ku xiga waxaan ku baranaynaa how to predict, sidee loo saadaaliyaa, or how to identify the group of an element, groupka uu ku jiro curye ama kooxda uu ka tirsan yahay curye ayaan ku baran doonaa casharkan casharka xiga. ardayow casharkan haddii uu ku anfacay waxaan kaa codsanayaa subscribe, share and comment. commentana ka bixi. insha allah waa noo casharka dambe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.